ku soo dhawaada barnaamijkeennii ahaa taxanaha taariikhaha dalalka caalamka kuna soo dhawaada xaqiiqooyin inaga daahsoonaan kara dalka kubadda cagta laga xiiseeyo. Colombia waa dal dhaca koonfurta qaaradda Latin America, wuxuuna xuduud la wadaagaa wadamada kale ah Panama, Venezuela, Brazil, Peru iyo weliba Ecuador. Colombia tirada dadka dalku waa qiyaas ahaan 48 ilaa 50 milyan, waana dalka 29aad ee ugu dadka badan caalamka, wuxuuna ku fadhiyaa dhulkani celcelis ahaan dhul gaaraya wax ka badan 1 milyan kiiloomitir isku wareega. luqadda rasmiga ah ee lagaga hadlo wadankani waa Spanish, halka 62 luuqadood oo kale lagaga hadlo. 86% dadka ku nool Colombia waa caddaan, halka 10% ay madow yihiin. dhanka diimaha markaynu eegno, diinta ugu weyn ee dadka dalkan aaminsan yihiin waa Catholic Kristana, 79% waa Kristaan Katholiga, halka ay Muslimiintu ku yar yihiin. waxaa la sheegaa Muslimiinta ku nool wadankaas ee yar inay soo gaadheen sanadu markay ahayd ama qarnigii 19aad dhammaadkiisii ilaa qarnigii 20aad horaantiisii. sidoo kale dhanka dhaqaalaha markaynu eegno, waa dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan Latin America, halka ay dadkiisu faqiirin yihiin. sidoo kale Colombia waxay ka qaadatay madax-bannaanideedii Spain 20kii July 1810, halka ay adduunka oo dhan u aqoonsadeen dal madax bannaan 7 Agoosto 1819. waxyaalaha caan ku yahay wadankani waxaa ka mid ah qaxwaha ama bunka, isagoo galay wadamada dhoofiya qaxwaha ama bunka kaalinta saddexaad. sidoo kale wuxuu caan ku yahay dhulkani dhoofinta iyo soo saarista mukhaadaraadka kala duwan, waxaana ka soo jeeda aabbaha daroogada Pablo Escobar, kaasoo ah nin in badan adduunka weerariyay.